kulankan isu soo baxa ahaa oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu taageeriyay waxqabadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo barnaamijka isxilqaam oo ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya kaasi oo looga qayb qaadanayo howlaha dib u dhiska ee ka soconaya guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho isla markaana lagu soo celinayo bilicda gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar kamid ah xubnaha ururka iskaashatooyinka kala duwan oo ka hadlay goobta ayaa ka warbixiyay waxqabadka iskaashatooyinka iyo doorka ay ka qaadanayaan howlaha dib u dhiska iyo bilic soo celinta dalka annaga dinta guud oo Muqdisho oo dhan gobolka Banaadir oo dhan ku taalo dadka dhisay ayaana lagana dhisi jiray hadda saaca la joogo waxa degsan tiyaatarka waxa ku degsan dhagaxii nuurad iyo jayga lagu dhiso guriga lagu shubo waxaana soo dhiibay oo ka timaaday annaga naga timid iskaashatada gobolka Banaadir ka timid inta danguuda dawladdu wax ku xukunto amba xafiis amba isbitaal amba mataqaana isgoolaada unka soo dhisnay ilaa waaga unka arkay nima dulmin sidii iskaashatoonahay waa taaganahay gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir ahna xubin ka tirsan guddiga isxilqaam ayaa ka waramaya ujeedada ay isugu soo baxeen waxaan meesha asugu nimid maanta inaan ka jawaabno baaqi madaxweynaha oo halku dhugiisu ahaa isxilqaan dalka ku dhiso guddiga isxilqaan oo la sameeyay oo loogu talagalay magaalada Muqdisho inay bilcida soo celiyaan iskaashadu waa ku jirta dadka wax la weydiistay guddigana ana ku jira oo toban ku ah waxaan maanta baaqas ka jawaabayna dadkan waa dadkii shalay iska xaqos ku dhisay magaalada Muqdisho haday iskool leedahay iyo haday salig leedahay dan guud oo dhan waxa dadka ka dhaxaya dadka dhisay waa iska xaqos ku dhisay maanta buu ka dib waxay diyaar u yihiin isxilqaan ay qaataan kelimadaas madaxweynuhu soo jeediyay oo dalka sida shalay u dhisan maanta kelimadaas ku dhisan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinka waday dadaalo ku aadan dardargelinta barnaamijka isxilqaam oo ay ka qayb qaadanayaan ururada bulshada rayidka iyo bulshada qaybadeeda kala duwan kaasi oo dib loogu dhisayo xarumaha muhiimka ah dawladda Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.